بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والسلام يا دمان bulshada daawan doonta war-saxaafadeedkan. Salaan ka bacdi waxaan ka hadlayaa Xasan Faarax Xirsi Xasan Mataan oo ah gudoomiyaha laanta Germany xusbiga wadani. maanta ay taariikhdu tahay 14 bishii Afraad 2017 waxaan ku qabanayaa shir saxaafadeed ujeedadiisu ay daaran tahay laba qodob. qodobka koowaad oo ah waxaan hadda ka hor 4 bishan Afraad warqad silsilada u gudbiyay hoggaanka xusbiga iyo hoggaanka laanta Germany ka tirsanahayba silsiladaas oo ku saabsanay arrimo shakhsiya ka bacdina hoggaanka xusbiga hoggaanka guud ee xusbiga taageerayaasha laanta Germany iyo hoggaanka laanta Germany kadib markii ay igaga timi codsi ah inaan maadaama aan silsiladaydu arrimo shakhsiya ku tacalluqday inaan wixii shakhsiya joojiyo oo dib u dhigo oo muddada doorashada aan xilka aan xusbiga u hayay halkiisii ka sii wado codsi fara badan oo dhammaan xusbiga qaybihiisa kala duwan ay igaga yimi. codsigaas oo aan ka aqbalay hoggaanka xusbiga oo markaa ku sugnaa socdaallo qaaradan Yurub ay ku marayeen. kadib waxaa xarunta xusbiga ka soo baxday warqadan aan halkan ku hayo oo ku taariikhaysan 12 bishii Afraad 2017 warqadaas oo ku saxeexan yahay xogeyaha guud ee xusbiga Maxamed Cabdillaahi Urcadde. warqadaas oo ujeedadeedu ay tahay in hoggaanka xusbigu iga diiday codsigii silsilada igana codsaday inaan hawshaydii halkeedii ka sii wado sidii markii horeba gudoomiyaha xusbiga ahna musharaxa xusbiga wadani Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo hoggaamiyaha xusbiga oo aan ku kulanay qaaradan Yurub muddo ay hadda imika socdaal ku kala bixinayeen ay labaduba codsiga ay soo jeediyeen horena aan uga aqbalay ayaa warqadan iyo maanta u khuseeya shirkaygan jirayd inaan ka falceliyo aniga oo saxaafadii iyo bulshadii Somaliland iyo taageerayaashii xusbiga wadani iyo mas'uuliyiinta xusbiga wadani warqadaydii hore silsilada hay'adda gaadhay in mar labaad saxaafadda aan u mariyo inaan ka noqday silsiladii oo aan aqbalay una hoggaansamayo qoraalka iyo codsiga ka soo baxay hoggaanka guud ee xusbiga wadani. qodobka labaad ee ay daaran tahay shirkan jirayd waxa weeye waxaynu ognahay dastuurka qaranka Somaliland wuxuu siinayaa muwaadinka Somaliland xuquuq ay u siman yihiin mas'uuliyiinta iyo muwaadiniintuba xuquuqaad siman oo waxay ahaydee asaasi ah ayuu dastuurku siiyey. mas'uuliyiinta qaranka iyo mas'uuliyiinta axsaabta iyagana wuxuu leeyahay xasaanad gaara bay leeyihiin oo uu dastuurku siinayo. muddooyinkan u dambeeyey xukuumaddu waxay caadaysatay inay mas'uuliyiinta xusbiga wadani tacadiyo xadhig isdaba jooga oo aan sharciga waafaqsanayn oo sharciga baalmarsan ay kula kacaysay muddooyinkii u dambeeyeyba. waxaa u dambeeyey laba mas-uul oo kala ah Maxamed Sidiiq Dhamme iyo Yunis Axmed Yunis oo hadda muddo 4 casho ah
sifa sharci darraa ugu xidhan jeelka oo haba yaraatee wax loo soo maray hay'adaha garsoorka oo xadhigooda maxay ahayd la taxalluqa aanu jirin wax lagu eedeeyaana jirin keliya laga qabtay goob ay bulshada Somaliland kula dareen qaadanayeen tacadiga xukuumaddu ay ku haysay dadkaas mashruuca wada banaynta ah ka tirsan xubno ka tirsan maxay ahayd xukuumadda iyo marwada qaranka aawadeed hoteelkeeda banaynta wajahadiisa iyo wada u samaynteeda loogu tacadiyay dad shacbigii ka dhiidhiyey dulmigaa lagu hayo iyagoo la dareen qaybsanaya in keliya waxa lagu xidhay ahaaye ay tahay goobtay ku sugnaayeen oonay mar ahayn oo laba ahayn inta goor ee madaxda xadhigoodu soo noqnoqday waxaan leenahay xukuumaddu ha ka waantowdo oo ha u hoggaansanaato sharciga asaasiyaadka uu siiyey sharcigu madaxda qaranka madaxda axsaabta qaranka haddii madaxda qaranku axsaabta qaranku ay wax dhaliili kari waayaan oo xorriyatul qawlkii dee sidaa loo caburiyo ma garanayno cid kale wax sheegi karta mucaaradku waa kuwii sheegi lahaa xukuumadda dhaliisheeda maalin beheer bay maraysaa waxaa la diiday inaan la hadal waxaa la diiday inaan la shirin waxaasoo dhami waa wax sharciga baalmarsan waxaan leenahay xukuumaddani muddada yar ee u hadhay ha ka dayso bulshadeeda baahida abaaraha iyo sixir bararka la daala dhacaysa halkay ahayd inay wax u qabato oo ay la damqato oo ay u gurmato iyadoo aan haba yaraatee wax dareeni ka haynin aan ku tala jirin inay sixir barar wax ka qabato oo ku tala jirin inay gurmadka abaaraha wax ka qabato oo ciddii ka hadashana caburin iyo cadaadis iyo xadhig iyo cagajulayn lagula hayo waxaan leenahay waxaasi dalka dhiqi mayso aad baan uga xunnahay mana habboona waxaan leenahay sida ugu dhaqsaa badan leh madaxda axsaabta qaranka ha loo soo celiyo xasaanadoodii iyo xorriyaddoodii kolley labadaa qodob ayaa ujeeddada ayn u qabtay shirkan jaraa'id ay daaran tahay kolley anigu muddo hadda imika sanad iyo bara ayaan hayay xilkan guddoomiyaha laanta Germany ee xusbiga waddani kolley waxaan filayaa dee waxaas maanta dee xusbigu uu iga diiday iscasilaadu waxa weeye uun dee inaanu ahayn aniga iyo hoggaankayga iyo taageerayaashaygiiba dad dee hawshoodii gudanayay oo dee hawshoodii aan wax dhaliili ka iman insha allah inta doorashada ka hadhayna waxaan ku tala jirnaa inaanu gaadhsiino xilliga doorashada xusbiga waddani waa xusbiga keliya ee waddankan Germany ka shaqeeya gobollada inta uu gaadhay ma inta kalena inta ka hadhay doorashada dhammaan laamihiisa waanu ka wada furi doonaa waxaan u diyaar garoobaynaa dhammaan arrimaha doorashada ka qayb qaadashadooda hadday tahay xag dhaqaale iyo xag muraaqibiinba dhammaantayo waxaan iman doonaa gudaha annagoo u diyaar inaan codka xusbiga ilaalino waxaan isku dayi doonaa inaanu keenno international observers dad ilaaliya goobjoogayaal ka noqda inkastoo dee hadda maanta cabdilaahi jawaan oo ah taliyihii arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha oo ah ninka ceelka guntiisa ku jiray wuxuu kaga soo warbixinayay aynu arkaynay oo aada looga walaac badan ka muuqdo in doorasho xor oo xalaaliba si ay u dhici doonto shaki badan bulshadu ka qabto waayo waxaynu arkaynaa komishankii qaranka ee doorashada loo igmaday inuu ka garnoqo inaanay iyaga laftoodu kalsooniba ku qabin oo iyagu u ololeynayaan in la furo wax mustambeed la yidhaaho oo dee iyaga laftooda doorashadii ka garnaqaya madmadow badan baa ku gadaaman komishanka doorashooyinka qaranka waxaan leenahay iyaguna sidii kalsoonidii ummaddu ku qabtay ha ku gutaan hawshooda oo waxba yay mustambeed iyo dad aan sharciga meel kaga jirno baalmarsan iyay awooddooda
ku wareejin ama aanay u daba fadhiisan madaxweynaha qarankana waxaan leenahay waxaan u jecel lahay in dalkan si wanaagsan aad ku sagootido si daahir riyaale oo doorasho xor oo xalaalo qabato ood noqoto kii ka garnaqayay maanta bulshadu aday ku dooratay maantana sidii doorasho xor u dhici lahayd kii qaban lahaa waa adiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.